You know, so they are watching all over the world. So I will be grateful if you share your knowledge with us. So you're taking us now? Yeah, what you teach about Jesus, right? I'd rather just talk to No, you. no, it's fine. You have the truth. I learned from you, so it's okay. I understand that, but So you're I don't want to be transmitted. no. My district, my village, you want to see this information you have. My village. Witnesses over there that can go to No. Just tell us, explain. No, I'm doing all that. I'm not doing that. So If we want to talk, we can talk, but we don't. We don't need to be doing that. It's Why like the we truth? take- We want to share with you the truth. She has the Bible, she has the truth. So tell us. The truth should not be hidden. In John 18 it says, "Seek the truth, and the truth will set you free." Right? So here's the message we have: is God's going. I'm a Muslim. I understand. So, but I'm telling you now what your book says. So the people can ask you what, when, where, how, and why, and you too, you can share with your knowledge. So if I have the truth, I will give you. If you have the truth, give me. So we exchange the truth. I'm telling you the message that we have is So do you believe Jesus is God or he's not God? no, He's not God. He's not God. Jesus is not God. No. Do you believe he's the Son of God? We believe He's the Son of God. I know. Okay, but do you believe that in the Bible Solomon is the son of God, David is the son of God. It means the sense of righteousness, not the biological son of God, right? We agree that Jehovah Witness and Muslims. You don't celebrate Christmas, right? No. We don't you don't celebrate the Happy New Year, right? You don't. Yes. You don't. All of that you don't celebrate. So you believe Jehovah, the God, Yeah. the Creator. Right. So we agree with that Jehovah, Allah, God is a power. He's a creator, right? Right. The only one. Yeah. He's the only one who is the savior. He's the only one who can remove our difficulties. He's the only one who can answer our call. He's the only one who has the power in his hand. My mother is named Maryama, I Mary. was going to send a message to you, but I can't talk because you keep No. talking. So Look, my mother is named. Maybe another Look, I time. I love Mary. My mother is named Mary, Maryama. My daughter is named Maryama. My brother is named Isa, Jesus. So accept Jesus is a Muslim. Are you aware of that? Jesus is a Muslim. Are you aware of that? So why are you going to the people if you're not listening to me? xaafadaha naga ku wareegayaan beenna waa noo sheegayaan haddii la ku idmaa marka ciyaalka iyo haweenka waa in laga celiya dadkaan dad yahow waxaa laydin baahan yahay inaad muslim noqotaan dadkaan waxba ma hayaan mana doodi karaan waxna ma hayaan diinna ma haystaan waa dad wareersan weliba kuwaan waa kuwa ugu rono jawaafa la yidhahdaa ilaahay bay aaminsan yihiin oo kiris ciise iyo khuraafaadkan ay ku leeyihin 3 ilaah baa jirtay ma rumaysnaa waxaan leeyahay marka dad yahow guryihiinni carruurtiinni waa laydin dabamaray war kama haysaan wax beenaa laydin akhrinahayaa huuhaa baa laydin akhrinahayaa waddankan waa laydin keenay waddamadan waa laydin keenay dadkii raggii qabyaalad iyo qurun iyo bakti bay isku haystaan madaxdii raggii qurbaha jooga jaajuusiin toog oo shacabkoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii khiyaamay bay noqdeen madaxdii qaranka waxa u shaqeeya anu madaxda waxba kama sheegayo laakiin madaxda qaranka boqolkiiba 80 dadka qaranka Soomaaliya waxa ku shaqeysta waa jawaasiis gaaladu keensatay safaaradaha waxa jooga waa jawaasiis gaaladu keensatay safiirka America lama bedeli karo Mareykanka keensatay ka Ethiopia keensanaysa midka Kenya keensanaysa dal madax banaan ma jiro madaxda Soomaaliyana United Nations meel walba waxay ugu khudbeeyeen wad maqlayseen geesiyaalka Afrika walaalaya Afrika baan u dhiibanay oo noo haynaya amniga qaranka Soomaaliya ayaga noo tababaraya ciidamada Soomaaliya ayaga dalka noo maamulaya dhaqaalaha Soomaaliya waxa maamulaya iyo waxa Soomaaliya ka soo baxay badii biriba African Development Bank war dalkan xor ma Uganda askartoodu $40 bay qaataan laaluush ma ogola Ethiopia $10 bay qaataan Soomaaliyana markii la dhawaal idin kaxaynaya waa ilmayaan mazabani qofku qoysku abaal marinayo wiilkooda askari wuxuu ka dhigaa aadahay Soomaaliya hadii la kidmaayo yaa looga dhigaa qoyskaas waa khaliijul arab oo kale hadii la kidmaayo marka madaxduna khiyaano qaran bay ku jiraan intaanan ciise iyo haddaan hawlahan u galin waxaan ku faraxsanahay walaalkeen xaaf oo aqbalay xilka qaadistii yirina dagaal sokeeyay anigu diyaar uma ihi yirina haddii la kidmaayo anigu ma doonayo in la isku baabo yirina ma doonayo cadaada in laga qaxo
yirina ma doonayo in cadaada ay gubato ma doonayo diladu gudmahayo sababtoo abu yiri ninkii iga horreeyay Cabdikariim Guuleed makhaayad baa looga qaaday xilka makhaayad dhexdeed makhaayad Cosoblana sidoo kale waa laga qaaday anigana haddii guri la iga qaaday anna waa aqbalay buu ku leeyahay dilaa gudmahayo anna waa aqbalay xaaf ragga xildhibaanada sheeganayo ka yimid xamarne khiyaanada ku socdo aniga laaluushka ay weydiisanayeen anigu waxaas ma aqbalay ku leeyahay xaaf mooshin ciyaar ma galo Cosoblana asaguna waa soo hadlay wuxuu yiri haddii aad Soomaaliya dhahdaan buu yiri mooshinka xaaf saaxiibkii xaaf laga keenay waa ciyaar anna kayga ciyaar baanahay buu ku leeyahay Cosoble anna waxaan madaxweynaha Hirshabelle ayaan ahay saa awgeed dawladda Soomaaliya arrimaha guduhu waa aqbaleen waana soo dhaweeyeen xilka qaadista xaaf wax ka noqoshaa ma leh naag la furay weeye xaaf waa nin ka ganacsada jaadka oo jaadwala ah haddii say biyaan sartiisii magaalada Muqdisho ninka jaadkeena waa xaaf gobolada dhexe wax jaadkeena waa xaaf daroogadiisii iyo qulunkiisii ha u noqdo daroogadiisii halkaas ay maraysaa naag la furay weeye xaaf oo saddexdii dalaaqood lagu furay rajactuna ma dhici karto bye adeerkay xaaf bye Cabdikariim Guuleed makhaayad baa looga qaaday xilka Cosoblana sidoo kale adigana sidoo kale furiinkii waa dhacay rajactuna ma leh xataa tankixa zawjan ghayra ilaa madaxweyne kale uu meesha qabto oo doorasho dhacdo doorashada ku furanta laakiin aniga haddii ay gudbaayo maahan anaa iskalo maahan fadhaaya adeerow macana dadkaan masaakiinta oo gaajaysan oo reemudugu waa dad indhaadaygna waxba loogama qaadi kareen iyo waqtigaas ka lumin dadkaan reemudugu kaa indhaadag haddaad indhaadag tahay haddii laa gudmaayo marka waqtigaas ka lumin fadlan niyaddana ha iska jebin jaadkaagaa kugu filan qurunka iyo daroogada iyo xaaraanta iyo baktiga iyo baadilkaa kugu filan adeer uga caliya dadkaan ha isku baabi'inin haddii laa gudmaayo reemudug wallaahi ma gabadaan reegalgaduudna ma gabadaan marka waqti ha iska lumin adeer jacaliye intaad joogtay dir waa la baabi'iyey nabadgelya ma soo kordhin nebinimaa la sheegtay iyo qurun iyo khuraafaad iyo bakti iyo gaalnimo adna ninkii nebiga sheegtaa difaacday nebinimo rag sheegtay baa difaacday ilaahay baa adigana balaayo kugu salliday balaayo alla kugu salliday isaga carar meesha intaan gantaalo iyo ciidamo ilaahay kugu habsan xaafow lafaaga la carar wallaan saleebaan iyo nimankaan indhaha dheer ay fariisanaynin yaan miino lagugu qarxina ka carar meesha haddii naftaada la carar ilaahay ma u digay waxyaalo badan baan ogahay xaafow aayar jaadkaaga ku noqo adeer uga caliya halkaa iska aad bidaar baa igashay haddii ilaahay gudmaayo okay Soomaaliya marka walaalayaal waa gaaloobina kristaannimo waa been weeye waa khuraafaad waa been waa cararayaan xujo ma haystaan diin ma haystaan meelay u socdaan ma yaqaanaan ilaahay rabbul caalamiin ilaahay cirkaa weyninka badan